culimaa udiin salaadiin waxgarad iyo dadweynaha aad u tiro badan ayaa saaka ku soo dhaweeyay duleedka bari ee magaalada Burco Sheekh Cali Cabdiraxmaan oo loo garanog yahay Sheekh Cali Mukulli isla markaasina kamid ah culimada waaweyn ee Quraanka Kariimka dadka ku dabiiba Sheekh Cali Mukulli ayaa safarkiisani waxa uu daaran yahay sidii xarun cusub uga fur lahaa magaalada Burco si loogu dabiibo dadka jiran ee haleeleen xanuunada jinka sixirka iyo isha iyo xanuuno kale badan ugu horeyntiiba waxa madashaasi lagu soo dhaweynayay ka hadlay sheekha culimaa udiinta gobolka Togdheer iyo waxgaradka salaadiin kuwaas oo si ballaaran u soo dhaweeyay sheekhaasi waxaan halkan ku soo dhaweynayaa duleedka magaalada Burco sheekha weyn ee caanka Sheekh Cali Mukulli waxaan kugu soo dhaweynayaa sheekh adiyo waftigaaga gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco soo dhawow baan ku leenahay sheekhu waa inoo yimi insha Allah taala safarkiisa muddo joogay insha Allah taala gobolkiisa weeye waana degaya insha Allah taala wax badan oo maartay naga maqnaaba maartay inoo imanaya oo maartay wax weeyaan cilaajadu ama maartay arrimahan oo kale way ku yaraayeen magaalada haddana maartay gobolka Togdheer ayaa laga yaabaa inuu maartay badan inoo joogo oo muddo insha Allah taala maartay dawooyinka sunniga maartay insha Allah taala maartay inoo maartay sheekhu inoo maartay inoo daweeyo insha Allah taala ilaahay baa dawo badan subhanahu wa taala gacantiisana iyo maartay tuftiisana ilaahay subhanahu wa taala baraku galiyay ilaahay waxaan u bareenaa inuu baraka galiyo dadka ka faa'iideystaan ilaahay subhanahu wa taala naga dhigo sheekh ku soo dhawow gobolkaagii degmadaadii oo ku dalbaday gobolka Togdheer annagoo dadka culimadii iyo waxgaradkii iyo uqaashiba waxaan ku soo dhaweynaynaa isagoo diinta dadka ku daaweynaya insha Allah dad badan oo xisbiyo badan baa la soo dhaweeyaa iyo dhaqaatiir dawaynaa garanay basida marka waxaan u leenahay ku soo dhawow gobolka jasaakum Allahu khayran ku soo dhawow sheekh magaalada gobolka Burco Togdheer degmada sheekho inaga buufinaya shaydaanka iyo jinka iyo wax walba waxaan leeyahay sheekh horeba ma lahayn inta ku soo dhawooba si mug iyo miisaan labaan kugu soo dhaweynaynaa anagu waxaan kamid ahay waxa weeye cilaajada magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer muddo waxa weeye 8 sano baan ka shaqeynayay waxaan kugu soo dhaweynaynaa waxa weeye si mug iyo miisaan la gacmo furan iyo qalbi furan iyo walaaltinimo aan kugu soo dhaweynaynaa waxaan halkan kaaga ballan qaadaynaa inaanu kula shaqeynayno dalab badan baa ka yimid Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer dalab buu ku yimid uu yimaado gobolkadana soo eego ummadda uu Quraanka saaro anana waxaan ka mid ummadda Quraanka uu saarayo markaa insha Allah taala waxaan inagu soo dhawo gobolkaagii Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay farxad gelisay waxaan aad iyo aad ma garanaysaa raalli ku noqday soo dhaweynta diiran ay soo dhaweyseen insha Allah daalkii safarkii waxaan ku ilaaway soo dhaweyntiina iyo meesha nagu timaadeen iyo halka iyaga ma garanaysaa magaalada uga soo baxdeen nagu timaadeen waxa Ilaahay ka rajeenayaa inta muslim ah oo ma garanaysaa maqlaysa muuqayga maqalkayga taqaan intaan aqoonba inuu Ilaahay ma garanaysaa inta xanuunsanaysa Ilaahay shaafiyo inta dib qabta Ilaahay ka qaado ka dulqaado inta ka nimid inta u soconaba Ilaahay baa caafimaad ka haya Ilaahay boqorka casiiska waxaan u weydiinayaa ducadiina iyo inta muslimna soo duceynayso inuu Ilaahay ma garanaysaa muslimka u socon Ilaahay shaafiyo ugu dambeyntiina waxa xariga laga jaray cilaajka Daarul Taqwa oo ah mid uu ka howlgali doono sheekhani imikana waxaan taaganahay oo xarig ka jaraynaa xaruntii uu sheekhu in shaqo galayay oo ah gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco ka soo horjeedka koonfurta kaga soo jeeda saldhigga Maxamed Cali Maxamed Yuusuf Cabdillaahi Maxamed Wardi TV qaranka Burco.